iyadu kama marnaa meesha qadiyadda Falastiin. Marka laga hadlayo xiriir u dhaxeeya dal Islaam ah iyo Israa'iil, markasta waxaa meesha ku jirta oo la xusaa qodobka dalka ama dadweynaha Falastiin. Halkan waa meesha ugu xasaasisan. Dad badan ayaa isweydiinaya Sacuudigu ma ka leexanayaa Falastiin haddii mar uu Israa'iil xiriir la sameeyo. Macnaheedu dad badan waxay u arki doonaan in Sacuudiga uu ka leexday ama uu baneeyay garabsiintii iyo doodistii xuquuqda Falastiiniyiinta. Haddii Sacuudigu uu xiriir la yeesho Israa'iil isaga oo aan wax damaanad ah u helin Falastiiniyiinta, waxay markaasi dhici kartaa sumcadiisa carbeed oo aad u yaraata, hoos u dhac weyn ka imaada. Kalsoonida dhanka muslimiintana waa ay yaraan doontaa haddii Sacuudiga uusan helin isku dheelitirnaan siyaasadeed oo danaha Falastiiniyiintuna ku ilaalinayo xiriirna uu kula sameysanayo Yahuudda. Sidaa darteed Riyaad waa in ilaalisaa doorkeedii hogaamineed ee dalalka Carabta iyo muslimiinta. Dhanka kalena Riyaad waa inay heshaa siyaasad isku dheelitiran, dano amni, balse aan lagu iloobin walaalaha Falastiiniyiinta. Haddii taa ay dhacdo oo xiriirkaasi dhab noqdo lana iloobo Falastiiniyiinta oo ay Sacuudigu meesha ka saarto ama ay ka baxdaba garabka Falastiiniyiinta, gabi ahaanba waxaa meesha ka bixi doonta sumcaddii iyo kalsoonidii muslimiinta iyo waliba doorkii hogaamineed ee Sacuudiga uu ku lahaa Carabta, muslimiinta iyo gobolkaba.